kadib howlgal qorshaysan oo shalay laga fuliyay deegaanka Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug isla markaasna ay iska kaashanayeen ciidamada guutada gargaar ee ciidanka deegaanka Danab iyo Gorgor ayaa waxay suuro gelisay in kooxda Al-Shabaab ee halka ku dhuumaalaysanaya ay iskaga farxadaan kadib jabkii shalay ka soo gaaray howlgalka halkaas ka dhacay mid ka mid ah horjoogayaasha kooxda argagixisada Al-Shabaab hogaaminaysay ee ku sugnaa deegaanka Qaycad isla markaasna shalay ay ciidamadu ku weerareen ayaa saaka isu soo dhiibay kadib markii saaxiibadiisa ay mid dhaawacmaday iyo mid dhintaba ay noqdeen horjoogahan isu soo dhiibay ayaa xukumayay koox ka mid ah maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab wuxuuna shar ka dagaal galay deegaanka Qaycad horjoogahan ayaa go'aansaday inuu isku soo dhiibo ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu ogaaday inuusan ku sii noolaan karin hawdkan isla markaasna ay ka dambayso casharadii shalay ay dhigeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed horjoogahan lagu magacaabo Yuusuf Macalin isla markaasna magaciisa afgarashada Al-Shabaab ay uga dhex yaqaaneen ku sheegay Cabdisamad ayaa sheegay in shalay tiro badan oo maleeshiyaadkiisa kamid ah ay halkaasi ku dhinteen sidoo kalena tiro badan ay ku dhaawacmeen kuwaas oo xilligan aan haysan gargaar caafimaad waana mid ku qasabtay inuu isu soo dhiibo isla markaasna uu xiriir la soo sameeyo ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed ciidamada dawladda xooga Soomaaliyeed hanis dhiibi safayleelahay indhawaay gacmo furunga lahay indhawaay dhabmal injeysana marka walaalowgii aan ku tabi oo meelan iskala rafaadani walaalayaal adduunka doof idaldal way meel kasta baan in sheegada walakii dhawaatayow ay lakiin ku weelnay meelahaas ku kuba wadankan ma bar ibeer una leena malka boobahay marka baadweyne ma deganini amaara ma deganini antiin hanaqalada hang leeyahadan ku dhugoobo marka walaagasi ku tawbasheena ana saasasiinka baage haddana ciidamada dawladda ani la rooga gacmo furunga la hasiinka dhawaaye maysiin arey hasku ku baha hadii walaalowneena oo dhibkooskii saasasiinka baage nambarraday haytan hay waca kortan ani lansiinka hire waka shantii sano ee la soo dhaafay wuxuu ka howlgalayay deegaanada koonfurta gobolka Mudug halkaas oo dagaal dhowr ah uu kula galay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka wuxuu hadda go'aansaday inuu safka dawladda galo oo uu ka tanaasulo fikirka argagixisada Al-Shabaab sida uu hadalkiisa u dhigay faafahadho markii maaskaraad aan ku bahi walhay gaadi gobolka Mudug la ishaani meel bacdiin hoosti ay adlileel ishaani walaw gaadi shabeelo wal ijay shabeelo dagaalihan ku qeyb gaadadi gayad naftiga dagaalihan ku qeyb gaadadi oo kiishalaya ka jari marka ad walbadan oo aan dawladda Soomaaliyeed aan hadhawaatay ya jari marka haddana ilaahay amarshii haddana ku tanaasuli ilaahay in suur galiyeen kaasan kama hadiye gaashaan Cabdiraxmaan Nuur Sahal oo kamid ah ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed isla markaasna qayb ka ah saraakiisha hogaaminaysa howlgalkii shalay lagu qaaday deegaanka Qaycad oo warbaahinta kula hadlay duleedka degmada Bacadweyne ayaa sheegay in ninkan uu saaka aroornimadii isku soo dhiibay isla markaasna ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen wuxuuna sheegay in howlgalladu halkaas ka sii socon doonaan ilaa laga dhameystirayo kooxda argagixisada ay ku dhuumaalaysanaysa deegaanada Galmudug waxaan ku sugannahay furimaha hore dagaalka waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan qaybta ciidanka Danam Gorgor kuwii 20aad daraawiishta ciidanka deegaanka ee gargaar dhammaan waxaan leenahay waa mahadsantiin howlgalkii shalay howlgal guuleystay waxa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa soo haray saakay xal aroortii waxa noo soo galay sargaal ka tirsan ciidamada shalay iska soo horjeednay waana soo gaaray gacantan soo gaaray asagana waxaan leenahay adigana ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga gacanta ku soo wareegtay waxa tagi doontaa wixii sharci hor ugu talagalay oo soo dhibayaashu ay ahaayeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waa mahadsantiin dhammaantiin bishaaro shirkadda Rawdo Electronic Company oo ah shirkad keenta agabyada elektarooniga isla markaasna caan ku ah keenista agabyada tayada sare leh ee elektarooniga awalna adeegyadeeda uga barateen magaalada Muqdisho iyo gobolada qaar ayaa hadda xarun cusub ka furatay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug si dadka loogu dhaweeyo adeegyada tayada leh ee caanka ku tahay shirkadda Rawdo Electronic Company xarunta Rawdo Electronic Company ee Gaalkacyo waxaad ka helaysaa taleefanada smartphone-ka sida Samsung-kii ugu dambeeyay iPhone-nada Tecnada Redmi-ga iyo sidoo kale taleefanada smartphone-ka kuwoodii ugu casrisanaa dunida sidoo kale waxa meesha ka marnayn taleefanada yaryar
noocyadooda kala duwan oo ay soo saareen shirkado kala duwan oo ah kuwa caalamka ugu sarreeya. sidoo kale xarunta shirkadda Rodo waxaad ka helaysaa qasaaladaha, marwaxadaha, mukayfiyada iyo agabyada kale ee ku shaqeeya elektarooniga. fiiro gaar ah shirkadda Rodo Electronic Company oo ah wakiilka shirkadda Samsung ee Soomaaliya waxaad ka helaysaa dhammaan agabyada elektarooniga jumno iyo tafaariiq. xarunteeda Gaalkacyana waxay ku taallaa qaybta hoose ee Hotel Topaz ama ka soo horjeedka shirkadda Hormuud. wixii faahfaahin oo intaa dheer kala xiriir nambarada shaashada ka muuqda.